introduction u baahan ama inaan istusno heblo waa kaas uma baahan wadadaas garan baan nahay reesaqa maslanahay haddana halwo dhibanahay haddana dad maartay wada deganaa muddo dheer oo inkastoo balanbalaba aan wada deganahay oo isku wada leenahay haddana si khaas ah waxaad moodaa inaan anaga maartay ama aad ogtihiin hal ruux oo maanta meeshan fadhiyo dhalinyarada yar moogi qof maanta reesaqa la dhahayo heblo magacaas la dhahaa inaan jirin baan u malayn marka waad maadsantihiin ma hadda kadib waxaan rabaa maadaama annaga aan socono korkii imaanay dad reesaaqa oo gaaris dhan noo joogna mo laakiin dad reesaaqa baan marka saas darteed maanta waxaan soo aadnay reesaaqa awood dadkii deganaa oo saaqa awood oo dil ah maadaama airportaagi inta ay tahay in maanta barnaamijka aan wadana iyo waxaan la soconaa idiin sheegno saa darteed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno anna gaaris aan hadda ka nimid waxaana u imaanay kursigii balanbala ayaa hawe naga gasho oon usoo kacnay haddaan usoo kacnay ninkaan la rabno waad garanaysaanoo deresaaqa waxaa layidhi sagaara mirca oo iskuma moogo nin reesaaqa wuudha haddana maaragtay aqoon badan in dadkan ay u leeyihiin ayaan idiin keennay saa idinku keenana waa sidan waxaan rabnaa annaga waxaan inta uga bilownay rikoortaada uga bilownay meesha waa meel cawda oo dhan iyo muslim badan uu degan yahay in aad talaan idiin keena ninkaasaan rabnaa kursigii balanbala inaan u doonee reesaaqaayow maadaama reesaaqa woor si khaas aan isku nahay oo dadku meel degan oo isku dan aan nahay oo dhibaatooyinka dhacaan mar walbo khayr iyo shar wixii imaado dad ka wada qayb qaata aan nahay inaan baltashano oo idiin keena ninkan aan keennee kursigan balanbala baan la damacsannahay balanbala kuuree saaqa keli kama dhaco balse waxaan mudnaanta u siinayna waxaa weeye maadaama woodkii uu ninkan ka yimaaday nin reesaaqa uu yahay talaan rabnaa inaan ninkanaan meesha u damacnay oon keennay ciise rokayn layidhaaha marka inaad baltashanno oo bulshadii aan u imaanay ee walaalaha annaga ahaa een isku danta ahayn aan u soo gudbinno waxaan wadanno kadibna taladay noo maartay aan isku dhiimina aan meesha kala galbanno kadibna aan isla howlgalna annagoo horun isku sheegayno maxaa u sababa ninka markuu ku dhaho aan tashanaynaa waxyaalo badan oo madaxa ku soo dhici kara maxaa u sababa dadka waa uu liimaan jiray waa uu durbaan tuman jiray kuwa rabnaan baa la dhihi jiray kuwa baa la qaadan jiray inaan wax ka bedelna arrintii baan rabnaa haddii ilaahay nagu guuleeyana sida maanta aan u tashanay inaan u tashan doonaan yaan jecelnaha insha allahu tacaala saa darteed waxaan rabaa inaad ogaataan kursigaasaan doonaynaa inaan la qabo baan horta idiin sheegi ninna dantiisa inuu garto iyo inuu garanin dadka waxaa fiican dantiisa inuu garto annaga ninkii meel noogu imaaday unbaa imbii noo noqon jiray ha xumaada ha samaadee maanta nin reesaaqa baan idii keenna ficlihiisana waa arki doona xumaantiisana waa arki doona annaga waaban keennay intaan u keennayna waa iniga inalala qaado oo dan isaaqa aan soo galna rabno maxaa u sababa ninkii u darfeeyo kaasho ka soo kacay intuu ku xiray reesaaqa haddaa tihin dadka midna waa tol midna waa jiiraan oo abnacda wareegsantihiin oo wax kasta aad isla wadaagtaan marka waxaan sababtii aan iniga niga soo cagdhinay meeshan iyo gaaris aan u soo dhaafinay xagga balanbala waa ula tegaynaa waxaan dhaafayno cawdaaqa ma jiro cawdaaqa ma wixii muslim oo eegada ku jiro waa kala batageen markii laakiin midna waxaan ugu soo hormarinay jiiraankii baana halkoo degme baana sidaa aawgeeda talaan inii keen walaalow iqaad walaalow iyeel walaalow kanbuu dadka la imaan jiray annaga lamaani imaanin waxaan inii keenay war reesaaqa maxaa dan nooce haddaan reesaaaqaanahay maxaa dan nooce intaa dheeleyna waa intaa haddii dan darro aan wadno waad naga qabanaysaa haddii dan aan wadanana waxaan rabnaa annagoonan isa jiraynin oo maaragtay inaan nala qaadaan annaga waaba inii keennay dadkii nala qaadahay aad noqotaan saqiir iyo kabiir marka 5 bilood oo sharda shancaw kama duunuur ama waan mahadin doonaa ama waan eegi doonaa inkastoo ninkan xurad uu yahay oo markii reer kors uu waday inta hadda cawdaa uu ku degan yahay ka nool yahayba asaga asaga uu kaalmeeyey oo asaga uu dhisay hase aatee faalladiisa way dambaysaa xubintaan maanta la raadinaynaa xubintan ka weyn in nalala qaadaan rabnaa hadalka ma sii badinhayin annaga waaban keennay maxaa u sababay
qoyska aan weli soo gelin baan anaga biyo aan weli na soo gelin intaan cawda qum baan dhisayna wiil akhristay waxa daqiiqada iyo qabiila baan nahay talada cawda baan u nugul lahayn marka isku dan baan nahay odayga maray arigeena iyo geeleena iyo loodeena mid hataa gabdhihi si kasta yaa daba dhaxayaan walaal ninka aan qaadno intaas anna inta aan baro maanta waxaan soo aanay reesaaqa inkastoo saaqa aan tuulad u kala fadhinay tuulad saaqa maanta maanuhu maana wixii jiri jiri yaanu maana nin kastana maalin busoo istaagay وضغطة لسداد باني جولا انت كورو ما سوي لغاية عوض ما نوصف لغاية انا سأعوض مين عوض ما تقولوا انا قنبرك ما تأسي واربا ولي بالرساقة يو انا ما تقنبرك هديع الرساقة ما تأمر قولا وقوين لي وإلهي وقوين لها معلومة وحوين ما كالهين لي يصوروا وكور غلا عوض ما دلي راقرس وينو المادة إسكوت معلومة أنت صوتنتو عيسى والعرك لكن يبيك لو وحلا العرك إنه جو هذا وسلامتين رجع بالعام وسلامتين نير ينوين وسلامتين سلامتها بعدي عن أمرين أنا غير ساقا مرة بعم ولا وداقنا صوتا ولا وداقنا سوريا ولا وداقنا قبلها ولا وداقنا ونسسينا هنا هبل وقبل بصوت صبر ما نقول هاي سوي لك ما مركا أنا كان سيدنا هبل أنا قاسم بانا أنا إنكري بانا وعملي ما تريش عمل كيوم ما مالي كيوم مال يقبله عمل حمل المرين عمل بعمل المرين والله والله ما حكى ولا حديث قلت قبيل أنا بابعين عن حبال الله قبيلي عن حبال الله maxaan soo gelinayaa qabiil marka xabaal saaqa aan soo gelino anigu waa ka zaman saaqa meel aan adduunyada magaalo aan ka jeclay habeenkan ayada waa habeen aan ka jeclay male nin ruux saaqa ka soo baxay markaan arkay in baa iga imaataan maxay ku noqotay waa ina saaqa ah annaga ciidan Ibrahim Siwaaq la yiraaho ballanta way qaadi wayna hadin ballanta ay qaaday meeshii ay ku waday way u gaarsiin marka sidaa ballanta inaan u wada qaadno أنا مجالد المجالين كوان كجال مركان دليرة هذا الجوب جرور أبان وجال مركز ساعة درادة ومهتسنتين سلاد الصوت حالرتين ولكن هذا الصوت دويسين أبان ومهتسنتين تنكله من أول كان واقع عاد مقاشين ونسك جابي أناجا وحال السعودي وركان للشيء أناجا أنا وذله ثلاثة أناك أسكاله إن أنكت الشمو wixii aan anaga ku soo shoornay yaan duqeydii iyo maamooyinkii culamaa udiinka gabdhaha iyo wiilashii meeshii saaqa aan u badnay yaan ula soo kacnay arrinta inaan shuuray ee walaheeda bal hadda aan ka tashano ballaarino sidaasaan la imaanay saad ogtihiin wiilasheena way akhristeen hadda dad badan oo soo istaagay 20 MCA u taagan 10 MB u taagan waxan baa lala yaabay in lala yaabo ma aha wiilasha way akhristeen dadkii baa dadkoo dalkii baa dalkoo Kenya shaqo kale laga leeyahay shaqada baa tan noqotay laakiin wiilasha annaga dhalno xoolaha markaad adiga leedahay ilmahan adiga aad wada dhashay nin walba meesii ku fiican yahay waad garan midka geela ku fiican waad kasi midka ariga ku fiicanna waad ka midka cidda inuu qareerka u doono ku fiican oo orgiga u sii qaadana waad garan saa daraaddeed wiilashii badnaa ee saaqa wiil ka mid aan keennay waan ku soo shoornay waxaan u aragnay meesha maanta aan joogno saaqa haddii aan wax ka dhigno nin ka dhaqaajin kara inuu yahay taladii baan ku soo shoornay inaan iniga neeli imaano aan ballaarino sidanaan la imaanay waxaa kaloo jirtaa waxaan ognahay rabnaa meesha inaan kaga tagno waxaan ognahay maxay wiilka maadaama wiilkan saaqa uu hooyadii iyo aabihii balanbalaa joogaan qaas ahaan reesaaqa wood u yahay nin hadda si haddii loo fiiriyo howlahan oo kale umud ku ayna u ahayn oo waxyaalo badan oo intaan ku tijaabinay taariikh cawda dhexdiisa kale ay jirto maanta meeshan haddaan geyno waxaan u malaynay nin tol anfici kara inuu shoorkaanagi kan u ahaa kan hadduu ahaa oo intaanadii shoortay saa aan isku afgaranay
aaquliinta iyo culamaa udiinka iyo bulshada naga badhayda saaqaa baan la soo aadnay markaan ka gudubnana waxaan ula gudbaynaa reer balanbala sabcounty walaalahan saa daraaddeed waxaan rabnaa taladii maanta reer saaqa ay ku tashadaan dadkoo dhan inuu ku daydo haddii intaan u tashanno aan dhahno wiilkan hee intii soo shoortay idan lama qabno waad noo keenteen waan tashannay maanta waxaan rabnaa inuu iska joogo hadday reer saaqaa dhahaan annaga reer saaqaa buu ciise ku go'aa waanan celinaynaa hadday dhahaan war khayr allahana siiyo tala nin iyo laba keenaanood bulsho ku noolaata ama qaran ku noolaata waa la arkay tala fiican baad keenteen nin uu qalmana wuu yahay meeshaasaan kasii dhaqaajinaynaa go'aankeennana waa kan hadday dhahanna kaasaan la galbanaynaa horta warka waa iska gaaban yahay naga raalli ahaada intaasaan idinku soo yeernay waa lagu daalay fadhiga saaksi loo ilaalin hadda fadhiga lagu jiraa waxaan rabnaa inaan nii sheegno annaga reesaaqa ciddii ibraahiim ahayd baa imbi doonaysaa waxaa laga yaabaa qoysas kale inay yaabin yihiin howsha horta maanta sidii hore ka duwanta saasaan u fiirina saash hadda say socoto niman badanoo walaalayn baa taagan coodaqa hadday seen hadda howsha ay ku socoto oo ay seen hadda howsha ay tahay ay ku socoto nimankana maanta toddoba ruux baa socotay imbi doonaysaa toddobadan ay socdaan oo booladka isla tagno reesaaqaana waxay ku aysaan loo riixaan ciise 3 sac waa imbi 3 sac inta la gaaro igu waa imbi insha allah horta annaga waxyaalaha fiirinayna ma fahanti aan nii sheegi reesaaqa imbigiinin ciise aan ii keennay howsha muxumo ma fahantay suun ilaahay ka dhigay noqon doontaa inaad garab nagu siisiin annaga kuureyna waan keenaynaa kiinan noogu dara insha allah ninkan 3 sac imbiha noo noqdo markaa saasaan maaragtay aan fataxaysan insha allah wixii maaragtay uu qabtana waa la sheegay wuxuu qaban doonaa hadii nin reesaaqa ninka waa reesaaqa waay gurigiisa waa saaqa soo saas ma ninka saaqa igu gurigiisa unbuu hagaajin igu soo gal soo saas ma ninkan igu soo gal saaqa gurigiisu hagaajin doonaa marka ciisana la doorta bilcaana inagana nala maqla waa nii keen doona hoos baa loo fariisan doona hadda kaambeeg waan hadda iska bilaabanaysaa hoos baan isku dhexgeli doonaa saaqaana si fiican baan isku kasaynaa duqay badan oo maaragtay magaalada ka siinaa waan ku xiran bacdigeed waxaa la yidhi ninkaa af badan tu hadlo wuu ku xaalfiyaa ani hadda wax weyn aan ku hadli male intaa horta yaan la qabaa dadkan u yiri yaan la qabaa inteeda galo waxaan u malayn reesaaqa ayagaa isxil mudan ayagaa jiiraane annaga waxaan keennay waan codsiga oo ka mid ah wiilasha cawdaaq oo dibas wiilkana wiilasha cawdaaq oo ka mid kulli waa wada imaadeen ayay ku dhaaraan arkay inta imaaday waa ka mid yihiin waxaan u malayn cawdaaqna tala u taala haddii talada intii la tashado anaga la rabay aadan gariyo maanta ama reesaaqaayo la dhahaa maanta iniga ma aha habal wey anaga cawdaaq waan ku go'naa laakiin reesaaqa waxaan ka rabnaa aan ka codsanaynaa arrintan hadda aan wadanay waan wiilkan waa wiil reesaaqa siduu duq hore nii sheegay saaqa kalsooni wey anaga hadda kaashaan ka imaanin nafteeda waxaan malay ninkii asagoo mb ahaan oo hay-ad ku jiro wax qabtay hadduu soo galo wax ka weyn uun qaban oo asaga ku baarlamaan lagu soo doortay kuura lagu soo doortay waxaan malayn wax weyn inuu qaban anina fa-aanteeda waxay la tahay ama tolka aan leenahay codsigii duqeydan ay keenteen in lala qaado inta hadashay baan u dhaadi moogiin wax kale u dhaan kuwa kale kuma hadaayin waxaa jirtaa waxaan jiri jirin lamaana imaanin maxaa waxaan uu soo jiray imbigaa soo jiray wax walboo dhan baa jiray siyaasaddaa jirtay ninkuu ilaahay calfana uu qaadan jiray waxaa jirta arrintaan la nimid ugu ma ahe waa arrin curada oo nagu horreysay waxaan wadanana waxaa weeye ama ugu badgado ama aqoon gadabu waxaan wadana waa aqoon sababtoo ah wiil aqoon adaan wadana anaga oon idin keenay oo maaragtay sababtoo ama talakeena howgii ama talayaan
talada waan keenay inaad idinka nala yeeshaan naga rabnaa oo talada ayada aad nagala qayb qaadataan naga rabnaa ammaan fara badan iyo waxaas nin walbaba haddaan garabagliilaynin nin walba wuxuu u qabtay iyo kartidiisa iyo ragadnimadiisa waa la ogyahay ama iyagow ama eetar baa layidhi midda hadda loogu jeeda waxaa weeye maadaama kursiga hadda nin walaalkeena uu haysto waxaa weeye iyo ogeyn ama eetar sababtoo ah waa gabadhii la sheegahaya horaan dhowr nin baa ku qoodan waa garmaamo marka ninkii ilaahay u canfuun baanu qaadan hadalka aan wadana waa intaa walaalayaalow waadna mahadsan tihiin intaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum aan ma sii dheeraynaay waxyar baan ka hadlay waxaa la dhahaa agtaada meesha dhoobada ama maata bustada oo sigada leh siday raad ugu reebto iyo erayga afkaaga ka soo bixi iyo dadka raad ugu reebtaa marka dadka intay aqli ka fikiraan intay indhaha ka fikiraan baa ka badan marka walaalayaal aanay ninkan walaalkay ciise yarow maalintii 2013 hadalluhu ku hadle iyo alaabteedu ku jiraan hadallaha ayagoo weli ma hilmaamin marka walaalayaal aan waxaan ka hadli dhalinta dantaan waxay ku jirtaa maxaa kuurahan maxaa loo keenay isbedel 5 sano inuu isbedel imaado marka haddii isbedel aan doonayno dhalinyarada waxaan kula dardaarmi ciise yarow iyo loo dabadar la'aanin ciise yarow aan dooranno asaga ma arda insha Allah isbedel keenayo waan ilaahay ka cabsano oo culimo ah marka ana maxaa ila quman ninka mar dadka waa dadka isku maaha nin ma arda wuxuu rabaa intuu kuuruhu gelin inuu wax daadsado marka walaalayaal mustaqbal ma arda diyaar u nahnaa isbedel baan doonaynaa marka maxaan doonaynaa dhalinta aad ala dardaarmayaan dhalinta ma arda ninkan ciise yarow ka hin ma arda aad iyo aad ugu dabdaraan walaalayaal inta santaa oo dhisan saaqa ahaan waliba keli haddaan ka soo qaado saaqa nuugii madax libaax qaboobay jakshankaa kale inta aan ka koobannahay ilaa hirbay ilaa haadley ilaa meesha dheerdheeray inta u dhaxayso oo saaqa laga xukumo hadda ilaa kaasha ciise yarow baa dhisay marka wuxuu ahaa markaa reeb koros buusha hadda intii santa ahayd maxaan u malaynay waxaan u baahannahay jiifaf waxaan u baahannahay sabjiifyo dan baan u baahannahay jiif iyo sabjiifna waxay gacantiisa ku jirtaa ninka embiga ee nationalka ee la doorto gabana looma doonanayo county wasiir ana looma doonanayo haddii ciise yarow aan dooranno waxaan u malaynay inuu intaa hal markiini annaga waxaan hadda niisiinaynaa oo go'aan ah maanan niireebin socda noo soo qaada ciise waa sugaynaa diyaar baan u nahay waana tashanaynaa sida la sheegay waxaa layidhi ninkuu u tashto mumin laba filin ninkuu gaar u tashtana geeri filin waxaa tashiga annaga aad ka sugaysiin annaga waxaa weeye reesaaqa markaan nahay dhantaannada meeshay ku jirta un baad noo keenteen waxaan ku tashanayna waxaa hashan saan u qalanaa hashan saan u qalan marka walaalaha now soo dhawaada waa magaaladiinni ku soo dhawaada walaalaheenna waxaan leenahay maarta soo dhawaada saaqaa ku soo dhawaada dadkii igu horreeya kolley sheegay inayna marti ku ahayn oo gurigiinna aad joogtiin arrinta aad noo keenteenna ay tahay maarta inaad tashano marka waad ku mahadsantihiin arrinta ayade waxaan rabaa maalka inaan ka hadlo anaga saaqa maxaa dan noo ah waxaan malay saaqa waxaa dan noo ah inaan tashanno ninkii markaa ayada ee dantaannada ay ku jirtana aan raacno in badan baa dad na soo maray dadkii noo imaani jirana awal meel kale noogala keeni jiray dad gaaris unbaa oon aana garanaynin odayaal unbaa intii noogu keenaayeen hebel baa laisku soo raacayeen baa la dhahaye saar unbaa noola timayo ninkii markuu soo galanaa dee ismaba kasaysinba waa danaad u goysan male laakiin ninkan sidii dadkii u horreeyanba ay sheegeen ama uu yahay oon garanayno waa nin reesaaqa ah waxayna dhaheen talada hadalka waad maqlayseene reesaaqa waxaa idin keennay tala ninkii ama nala qaada ama ninkan ma ahee waa la celin waan celinaynaa bay dhaheen maanta
marka waxaan idiin sheegaynaa ani mu'anadayda ama fikradayda sida ila tahay saaqa dad badan cawlaq badan baa fadhiya laakiin dadka u badan waa reeqaasi annaga waxaan rabnaa inaan tashanno waa idin tashanaynaa dantaannadana meeshay ku jirtaan maraynaa dantana waxay noogu jirtaa ninkii noogu dhow oo maaragtaa wadka aan iskula jirno dantaannada aan u geysan karno haddii dhibaato nagu dhacdan waxaan idin sheegay ninkan inuu reesaaqayahay meesha way naga duusanay jiif garaad iyo jiif ibraahim iyo raggaasaa berigi awalkeeda hore dhise haddana muddo fara badan baa naga duusanay shalay sooma duusanay shalay saaka asagaa hagaajiye inuu reesaaqayahay maaragtaa saasaa maanta ku garanaynaa arrintaas dad badan baa jira weliga ila sana joogan bay rabeen iska maadan kuwa kale ilaa asaga war buu ka hayay saa ku hagaajiye meesha ayide marka reesaaqayow waxaan leenahay maaragtaa ninkaas waa inaan il raxma ku fiirino maxaa yeele waa nin reesaaqayo aan tashani karno oo aan danahana u geysan amin gaaban waxaa layidhi ereygiisana gaaban akhyaar badan baa idaba taagan waana laga cudur daartay hadalka in la dheereeyo walaalaheen waad maqlayseen codsigooda waad maqlayseen walaalaheenna waxay dhaheen taladii baan idin keennay weli ninna dhaho ma aragteen waan taagnay iyo ogaada mb baan rabaa ogaada oo barse un laga bilaabo waan aragnay laakiin arrintaasaan rabnaa oon soo qaadnay taladiina idinkaan idiin keennay gurigii baan keennay weli waxna dhaho maana arkin markaad fiiriso waxaad garanaysaa ninka hadduu taladiisaba toolka ka bilaabay mar kastaba inay taladii hadhow lala tashan doono oo uu ku keeni doono wax kuu hambayni ninka hor wax kaaga hambayn waaye gadaal dama miyaad arkiba bar baaban la arkayninba ma nabad baa iyo maxaad ku nooshihiin iyo see tihiin iyo war dadkii maxaa ka nool dad baaban bar baaban laga helayninba iska badaa waxgalka leh marka waxaan leeyahay saaqa wixii umusha u roon baa ilmaha u roon baa leeyahay wixii umusha u roon yaa ilmaha u roon wixii embigi wax gelahayo haddaan dooranno innagu wax inoo geli waxgal bay inoo tahay waxqabadkiisa kulley cadaa uu kasi haddii ilaahay yidhaaho wax noqdo inuu wax gari garan anu wax qabanayo waan arkaynaa uma ammaanayno hayeen wax asaga uu sameeyey baan sheegaynaa qofka mudanka wuxuu kuu gala inaad teegtaa fiican alla wuxuu u galaana waan sheegaynaa waana la maqlay nasiib darri ma ogii ninkan hadduu soo gala meeshan inuu wax tari annaga waa arkaynaa maxaa yeelay asagoo awooddiisa ay yar tahay buu wax galay walaalkii waa u galay asagoo awood aan u yeelne berta agga af u yeesho oo saabka heerma aad ka dhigto geedka si fiican buu goyni ilaa haddaad meeshii wax ka goyna aad safaha ka bariso ama kuuma goyna hadda wiilka af ma leh waa inaan soofaynaa waa inaan wax gufmu u yeelnaa waa inaan dhisnaa waa inaan garab siinaa haddaana yeelin haddii annaga baan u ku dhufanay wiil walbana wuu tagay waxaan idiin sheegi annaga geedka soo joognaa laga keeni nin gaaris ma naqaano ninka annaga meel oge maan bixi karno ama qambadhi annaga soo qaadno korka maa nagala raynag maalintii kuwa lagu lidaa noogu dambeey reesaaqaya horta gadaal aan wax fiirino war danta annaga aan garanno maxaa qoofsi naloo keeni ninka inkastoo aadaq u yahay hadduu gaaris fadhiyo annaga qoofsi nugu annaga waxaa ka soo bilaabanaa dhidheeni hadduu ninka dhedheeni ka imaado ama uu ka imaado kaasho uu ka imaado waa reesaaqa annaga ninka reesaaqa ama dan ugu jirtaa war danta annaga war wiilka annagi walaashan saaqa baan u joognaa midkan loo keeni bal aan xag iska dhigno inkastoo aada uu yahay ilaa kala xeeraanahay xeerada anaga waad garanaysa waa reesaaqa marka danta saaqa aan soo galno aan tashanno ninka aan qaadno tunka aan saarno aan meel gelino hadduu waxa geli waayo raganimadiisu waay waana sayntana waan haynaa markaa hadduu waxa geli waayo wuu qoysi waayo saynta qabadeed aqalkiisa kugu xira aqalkiisa baa u tagtay manala baaali aqalkiisa kuu muuqdaay inta aan ninka ku qaadno waxgalmidooda arkaysiin aan soo dhaweyno walaalkaana waayo tana haabas ka dambayse ilaa tanadana ha noqoto tu waxa gasho oo ninka aan ku qaadno oo walaalkaana tuga aan saaran ha noqoto wasalaamu calaykum